شيخ شريف أحمد، حسن شيخ محمود، عبد القادر الصبلي علي، يا عبد الولي علي قاس. أفرتها مشرح وحنكرة سنة سنة أمام قدوه إلى غنى إلى أفرتها الصوت فريستان بنعم السوريان سيهم روحه runtii aad baan ugu mahadnaqayaa xildhibaanada Soomaaliyeed ee maanta sida wanaagsan ay mursada u jirto codkooda u dhiibtay. waxaan rabaa inaan sheego waxaan ugu faraxsanahay inay tani tahay mirihii 14 bilood ee soo dhaafay xukuumadda badbaadada qaran ay ka soo shaqeynaysay inay meel fiican marayso, inay meel gabagaba marayso, in maanta hadda gabagabadii doorashadii madaxweynaha aanu ku jirno. aad baan u faraxsanahay, aad baan ugu mahadnaqayaa xildhibaanadii ii coday codkoodii siiyey iyo kuwii aan codkoodii siiyey intaba waa mahadsan yihiin. Soomaaliya meel fiican bay maraysaa. aad waxaan u faraxsanahay 14 bilood inaan ka keenay meesha ay joogtay, aanu keenay meesha hadda ay marayso. haddana u baahan tahay in meesha joogto laga sii qaado oo meesha ay istaahisho la geeyo ayaan aad jeclaan lahaa. waxaan kaloo idiin sheegayaa in anigu wareegga labaad aan ka tanaasulay, aan geli doonin. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay isbedel, waxay u baahan tahay horumar. saas daraadeed waxaan aad u jeclaan lahaa in isbedelka loo eegiyo, in horumarka loo eegiyo, in Soomaaliya dariiq cusub ay qaadato ayaan aad u jeclaan lahaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والله يا بدومي بحرمة يحل معنا لما لحظة شرفت له مرتدى كلام وعن ربا معرفتين يلعب رمات فرعية عن حد كلهان إن صومالي مانت أي كل أورانا يسمى مدحوينه دي waddanka gudihiisa markay ka soo wareegtay muddo fara badan 22 sano ilaa 30 sano. runtii waa arrin aad loogu farxo. qof walba Soomaaliya runtii uu dareemo soo noqoshada ay bilaabatay inay soo noqoto qarannimada waddankeeda. waxaan rabaa xildhibaanada sharafta leh inaan uga mahad celiyo doorkooda dastuuriga ah oo ay guteen maanta. waxaan rajaynayaa inay sii wataan doorkooda dastuuriga ah wareegga labaad, anigoo jecel inaan maaragtay meeshaan ka cabiro oo tilmaamo in aan tanaasulay oo aan wareegga kala ka baxay. بسم الله الرحمن الرحيم. wareeggii saddexaad oo xildhibaanada golaha shacbiga ay ku magacaabayeen ku xulanayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay u dhacday sidii soo socota. tirada saxiixiyada ku jira liiska oo xildhibaanada ay saxiixeen waa 269. tirada waraaqaha doorashada ee aan la buuxin waxba everywhere. tirada waraaqaha doorashada ee aan hagaagsanayn ama xumaaday eber. tirada waraaqaha doorashada ee hagaagsan 269. tirada codadka la bixiyey 269. wadafta waraaqaha codbixinta ee la helay 271. wadafta waraaqaha doorashada ee xumaaday eber. wadafta waraaqaha doorashada ee aan la isticmaalin 2. isugeyntii waxay noqonaysaa 271. codbixinta la bixiyey waxaa loo codeynaya 2 musharax oo kala ah xasan sheekh maxamuud
الشيخ شريف شيخ أحمد حسن شيخ محمود الشيخ شريف شيخ أحمد وحو هلي تضواتن يسقال حسن شيخ محمود وحو هلي بغول يسقاشا سادراتي عدينتم قربت ميشا كالعادي مغربتم ميشا كالعادي وحقوقه الاستيل مدني حسن شيخ محمود waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqayaa in mudane xasan sheekh maxamuud uu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee
intaas markii aan ku gudbo waxaan rabaa inaan mahadceliyo shacabka Soomaaliyeed dhammaantood sida ay ila shaqeeyeen sida gacanta ay siiyeen sidaas oo kale waxaan rabaa inaan mahadceliyo dowladihii kala duwanaa iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida ciidamada AMISOM sida ay gacan soo siiyeen dhammaan shaqaalaha dowladda waxaan ka baxayaa saaladan ama qolkaan aan badal qabin oo gacan lagu siiya shaqadeydii aaminsan inaan soo gaarsiiyo daalka maanta inuu ka baxo kubeel gaar laguna doorto madaxdii qaranka caasimadda Soomaaliya mudane aad iyo marweyn waxaan maleynaa munaasabadan kuma habboona hadda dheer laga yidhaah laakiin waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo halkan waxaa taagan saraakiisha ciidamada waxaa taagan agaasimihii hay'adda nabad sugidda waxaa taagan taliyihii ciidamada xoogga waxaa taagan taliyihii booliska Soomaaliya dhammaan saraakiisha ciidamada qalabka sida saacadaas laga bilaabo si uu amnigu uusan u naqan wax la isku hadlayo waxay ka amar qaadan doonaan madaxweynaha hadda la doorto aniga oo xilka rasmiga inuu wareegayo dhaarta kadib laakiin taas waxaan u yeelaa inaan fursad loo siinin cid kastoo amniga ku ciyaaraysa isla markaasna waxaan ballan qaadayaa talooyinkaygii ku aadanaa xagga amniga inaan sii wadi doono ilaa madaxweynuhu si buuxda ugala wareego awoodda madaxweynenimada mudanayaal iyo marwooyin mar kale sharaf ayay tahay Soomaaliya ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryayaa mustaqbal ifaaya nabad buuxda horumar midnimo iyo inay gaaraan himilooyinkooda waxaan u maleynayaa inaan iloobay baarlamaanka inaan mahadceliyo sababtana waa iska garan kartid halmaan hadal kuma jiro waa mahadsan yihiin baarlamaanka sharafta leh gaar ahaan raggay doortay aad u mahadsan yihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aan u baahan tusaalaha u noqoto dhalinyarada Soomaaliyeed in aan si dimuqraadiya islaamnimada ku jirto amaanada ku jirto aan u maamuli karo dalkeena tusaalada waxay hadalladii haduu soo jeediyay madaxweyne Sheekh Shariif Axmed dhalinyarada tusaalaha idin noqoto dalka rajadiisa waa soo kacday wuxuu go'aansaday in uu ka baxo حالة الكجرة وجودها حالة ديمقراطية إسلامية حرمرة إنه كم هذا قلبك أنت أفكر في وجودها قلبك استعاشن اللي حاد الدستور كه وحكام ضياع دارين تم الحوينها وحنا دستور كه واجب كدقيا إن قدوميها محكمة السرة ودارية صادرات وحنوية مدن مدحوينها الجمهورية الفدرالية الصومالية السود مدن حسن الشيخ إنه يماد نارتي نقاط دستوري هاي غلط كسياش اللي اللح الدستور كان عصيب وشاقي هذا الله واحد يقدم ورنا إنسان بدون مدحوين وعن كل أرنا يا مجع إلهي إن حلك يجوبته سيدا عطا ودنت الدلكة dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka
dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala wabillahi tawfiiq mudane madaxweyne awguuriyo aku awguuriyeenaya waxaa kuu bilaabmay xilkii madaxweyne waana xil culus waxaana loo baahayay mudane madaxweyne inaad aad u aqrido qodobada dastuurka ee sheegaya xilka madaxweynaha waa mahadsantahay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساعة بدن إيمان دير أو شقاء يا لصومري وبدر وقت اللي جينا نقوله لكن حمدون يا كان دور قلب مهمة إن كسر جدي أما كاشيبه marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya intii idooratay iyo intaan idooraninba dulqaadka ay muujiyeen waqtigii adkaa ee ay socotay doorashada waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa guddoonka baarlamaanka jamhuuriyadda oo si hagaagsan u maamulay ilaa intii la dhisay ilaa la doortay baarlamaanka iyo guddoonkiisa waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa guddigii doorashooyinka ee sida habsamida u daadiyay doorashooyinka ayadoo ay ku dhex shaqaynayeen duruufo aan aad u jirjircanayn oo adag waxaan doonayaa sidoo kale inaan u hambaliyeeyo inaan u mahadceliyo beesha caalamka ee Soomaaliya mar walba la garab taagan hiil iyo hooda farsamo iyo midda dhaqaale iyo midda moralka waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale guud ahaan intii ka soo shaqaysay in processka taariikhiga ah ee madaxweynihii hore jamhuuriyadda Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ku tilmaamay inuu yahay process taariikhi ah waxaan qirayaa waxaa maanta halkan ka dhacay taariikhda Soomaaliya inay bogdahaba uga qornaan doonaan waxaan sidoo kale iyo si lamid ah si weyn aad iyo aad u weyn ugu mahadcelinayaa madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed waa saaxiibkayga shalay waa saaxiibkayga maanta wuxuuna ahaan doonaa saaxiibkayga berri haddii aan la yiraahdo waxaan ku ammaanayaa oo aan ku hambaliyaynayaa isbeddelka taariikhiga ah ee intii xukunka uu hayay Soomaaliya ka dhacay waa arrin taariikhda Soomaaliya ay xusi doonto magaciisuna mar walba uu ka muuqan doono taariikhda Soomaaliya inuu nasiib u yeeshay inuu hirgeliyo arrinta maanta dhacday dalka inay ka dhacday xukuumadihii kala duwanaa iyo madaxdii xukuumadahaas ee ayaguna u sabab ka qayb qaadatay arrintaani maanta inay dhacdo waa u mahadcelinaya dhammaan waxaan u hambaliyaynayaa shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waad ka timaadeen waddadii dhibka badnayd waddo toosan ayaad haatan cagta saarteen inta ka dhiman sii wada waxaana shacbiga Soomaaliyeed aan weydiisanayaa gacantooda hagar la'aaneed si dalkeenna dowlad gebigiiska hana qaada ay uga dhaqan gasho Soomaaliyana ay ku soo noqoto beeshii caalamkeed oo maanta bilaabatay waxaan aad iyo aad u rajaynayaa duruufihii dhibka badnaay iyo waayihii dhibka badnaay aan soo marnay inay noqon doonaan beej la rogay oo laga soo tegay haatan uu noo bilowday beej cusub beejkaas cusubna shacabka Soomaaliyeed la'aantiis wax fiican kuma qormayaan sidii kuwii hore kale waxaan rajaynayaa waxa wax ugu fiican ay ku qormaan mar kale waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh